gashaanti gayaankeedu calmaday soo gaf maaha in la isku gubo waa oraha adeegsanayaan bulshada beesha jareer weyn intii ay soo baxday dhacdadii uhubka ahayd ee asbuuc ka hor muqdisho loogu gubay allaha u naxariistay mukhtaar axmed dawlo mana aha murugada arrintaasi ay reebtay mid ay ummadda inteeda dareen kale ay ka cajisayaan cambaaraynteeda odayaasha iyo dhalinyarada beesha jareer weyn ee ku nool magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa markii labaad arrintaasi si qoto dheer uga hadlay waxaana kulankooda maanta ay ugu magacdareen barordiiqdii haliyay Mukhtaar oo ay cod dheer ku cabireen dareenkooda ku aadan dhacdadaas waxay baaqu direen hay'adaha garsoorka qaranka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ay ugu baaqeen in arrintaasi cadaalad ay ku dhameeyaan waxa halka fadhiya dadkii u dhashay gobolka Hiiraan waxa kale halka fadhiya dadkii u dhashay degmada Jallaqsi ilaa iyo Buulo Burte waxa halka fadhiya dadkii Iji Diin la u dhashay waxa kale halka fadhiya dadkii Jowhar u dhashay ilaa iyo Qalmo iyo Balcad dadkii degana waxa kale halka fadhiya dadkii u dhashay Afgooye ilaa iyo Kismaayo jareerkii degana ilaa iyo Shabeelle ragii degana halkaas aan wada fadhina waxna kulmiyayna waa la garan karaa uma baahna macnaha faahfaahin waxaan u kulanay waxa way dhibaatada ka dhacday Muqdisho oo aad iyo aad u xanuunka badan oo wax dhacay aan ahayn oo caalamka dhan la yaaban yahay hada nin islaam ah nin muslina guur darteed loo dilana waa sharaf daro hadarna waxaan rabnaa inaad Soomaalida aan u sheegno ninkii inuusan anaga kaliya naga dhimin Soomaaliya dhan inuu ka baxay Soomaaliya dhan buu ka baxay waxaana loo baahay Soomaalinimada inay ka run sheegto Soomaalinimada ma wax suuq laga soo iibiyo ma wax la iska sheegto waa wax dhaba waxa weeye Soomaalinimada waa tii 60 loo dhintay xornimo loo doonay oo Talyaani Ingiriis dalka laga xoreeyay waa la wada dhamaa cidna kama maqneen waliba anaga u banan xoogeedii maantana dalka waxba kama nihin laakiin waxaan doonaynaa walaalaha iyaga kursiga iyo darajada iyo sharafta iyo madaxtinimada waanu ogolnahay dama suuqmaasuqana laga daayo inay Taliyaan anaga diyaar u ah inay noo Taliyaan anaga rabna laakiin talidii haddaan idin daynay war dil ha noogu darina oo hadda dilka noogu dartaana rag si fiican baa loo dilay war gubis ha noogu darina waxaas waxaan qaadan karnaa ma dawladda federaalka waxaan ka codsanayna in ay hawshaasi sahashanin aysan fudeedsanin ay culays ku noqoto waxa meesha ka dhacay waa wixii Tunisia gubay waa wixii Syria dawlad lahaanta dhigay waa wixii madaxweynaha Yemen dilay waa wixii Liibiya madaxweynaha lagu waayay mar rabna anaga dalkeena mar labaad inay shaqaaqa ka dhacdo waxaan doonaynaa nabadgelyo waxaan lagu yaqaanaa dad nabadeed waxaan dadkii dalka dhisay beeraha ka shaqeyn jiray dalka waa walgamay ma in maanta lagu tunto mana yeelayno mana noo cuntamayso waxaan Soomaaliya ka rabna Soomaalinimada in run hadii laga sheegayo dadka dhibka geystay in maxkamadda loo soo saaro waxa jirtay nin oo ay dameer iyo wiil baa u joogi eegi dameerkii wiilkii markii u joogi eegiyaa laga dili gabartii waxa tiri aabow eega ka dhimo ninkii wuxuu yiri ay la dili waa shaqo kuma leey dameerkii bash lagisi aabow ma joogtid wuxuu yiri dameer la dili waa shaqo kuma leey maalinka kale wiilka qablagisi warana la soo boodi faraqa qabatay joogaat maalinkii eega la dilay in wiilka loo soo socdo ma ogeyno hadda marka loo gubi in karkaras loo soo socdo ogaada waxawaaye meel kasto oo la joogo degtiina war hadda diinta islaamka oo nool mari waa ku sabreenay hadda diinta islaamka nool marinin wuxuu yiri muusa afar aheed oo afgay ku koriyi ilaahay afkay inuu gubto masiibo waaye ya afkay inuu gubo oo fuuma sheegin بعد وحاليناي هذا دين الإسلام كنا نقول سبرين جواب عراك بحنينا qaar ka mid ah dhalinyarada beesha oo la hadlay warbaahinta TV-ga SBS waxay sadareen leh ay isbarbardhig ugu sameeyeen nolosha ayagu ku haystaan Puntland iyo sida qayrkooda la dhashay ay ugu nool yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka haddana nahay beesha jareer weyn ee Soomaaliya afarteeda koono haday laga reebo Puntland inteeda kale xaqeena xuquuqdeena in lagu tunto aan ku dulmanay qaas ahaan caasimadda Soomaaliya meesha lagu sheegay ee Muqdisho waxaan fariin u dirayaa madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xaqiiqdii waxaad sheegateen nabad iyo nolol laakiin wax jira ma aha wadna fishalanteen waa sidaan idin ka rajeynaa ma idin ka filayna uma soo bixin marka koo waxa lagu weebeeraheeni waxa lagu weey haddana guryaheeni
maantana waxaa ku xigtay nin dhalinyaro aniga asaagayga oo 20 jir ah waalidkiisa in loo gubo gabar oo guursaday aniga waxaan joogaa caasimadda Puntland ee Garowe waxaan leeyahay laba xaas oo u dhashtay Puntland waana noolahay miyaa la gubo waa may maantana waxaa dhacday gobolkii aniga aan u dhashay iyo beerihiigii markii la gubaan kaga nimid micnihii haddii aan gabdhihii guursano haddana nafteeni in la sii gubayo midaasna mid socon karta ma aha anaga waxaan nahay dhalinyaro 20 jir ah arinta maanta dhacday haddii dadkaasi sharciga islaamka sida oo qabo xaqooda loogu soo dhicin waayo waxa dhici doona wax yar ma aha waayo aniga 20 jiraana uma adkeysan karna maalin walba walaalahayna waalidkeena in horteena lagu gubo mid kale oo jirta waxay tahay meel walba qofka bini'aadamka uu xaq iyo xuquuq bay leedahay Puntland waa hadeer maamul goboleed xaqeena helnaa xuquuqdeena helnaa gabdhihii aan guursanaa jaamacadan dhiganaa awlaad baan ku dhalnay gawaari casri aan ku wadanaa nolosheena waa mid iska caadi ah maanta muqdishona waxa dhacday hadii aad qaadatid gaari $800 joogo askarta inay ka qaadato dawladdan aysan ka qabanaynin hadii aad guursid gabdhahooda in madax laga tooganayo beer hadii aad tacbadidna in dab laga qabanayo cid ka hadlaysan ma jirto aniga hadalka kuma sii dheeraanayo midda aan ka hadlayo waxay tahay ummadda masaakiinta ah ee dadkooda la dilay ilmaha la agoonteeyay aabood laga dhaxbixiyay qoyska hadii lagu qasbo in ay mag qaataan lagu cadaadiyo anaga hadii aan nahay dhalinyarta beesha Jareerweyne go'aan cad baan ka qaadanaynaa Allahu naxariistay Mukhtaar Axmed Dowre oo ahaa muwaadin Soomaaliyeed ayaa geeridiisa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed hay'adaha garsoorka ayaa laga sugayaa natiijada xukunka dambiilihii geystay falkii arxandarrada ahaa Maxamed Cabdiwali Nuur Timire SBS TV Garowe